إلهي وحلي وخلق كل شيء فقدره تقديرا با إلهي يلي وحكست الرب وأبوري لكن وحا أبوري يساقو جانقوي جانقوين قياس الله طلق لي إيادوكو صعطة مثلا waxay tilmaamayaan wax kasta oo dunida yaala aan tusaalayaal kooban oo dadku caadi u fahmi karo wax ka tilmaamo marka ilayhin kawnun ucidda lana waxay dhahdaan dhulka qoloftiisu dhulku marka la dalooliyo hoos loo socdo inta hoose waa maxay waa dhoobo oo kale waa melting waa wax cajiin marka qolof buu leeyahay qoloftiisa meesha ugu yaray waa 70 kilomitir waxay dhahdaan qolofta dhulku intay haddatay hadday ka weynaan lahayd dunida ugumayna nimaadeen bay dhahdeen wax oxygenayada nuugi lahayd wax carbon dioxide ana looguma yimaadeen that means noola kuma noolaadeen hadday in yar ka yar tahayna waa cagsiga مثلا waxay leeyihiin atmosphere-ka hawadan cufnaan bay leedahay culays bay hawadu leedahay haddii culayskeedu intaa ka fududaado density-geedu culayskeedu hadduu intaa ka fududeeyo hawada way kor bay u bixi lahayd hadday kor u baxdana waxbay inagamay celiseen iminka xidigaha dhaca iyo waxaynu aragno nayaasigta iyo shuhubka iyo waxaynu aragno dhan asteroidskaasi xidig baa dhacday Soomaalidu tiraahdaa laakiin inama soo gaadho wuxuba dhulkay ku soo dhici lahayn bay leeyihiin that means noole kama jirteen waxay tilmaamayaan oxygen-ka dunida maanta waa 21% hadduu in yar ka badan yahay bay yidhaahdaan every 1% oxygen-ku uu bataa bay leeyihiin 70% buu kordhinaya inay dunidu gubato macnaheedu waxa weeyaan oxygen-ku hadduu 22 ahaan lahaa hadduu 21 ka yahay hilaac kastoo dunida ka dhaca way guban lahayd hilaacu markuu billig yidhaahdo kayntoo dhan baa ololi lahayd wax jiraa ma jireen magaalooyinkaa ololi lahaa waxay leeyihiin cadceeddu intay inoo jirto distance-ka inoo jirto hadday ka fog tahay waynu engegi lahayn hadday ka dhowdahay waa la guban lahaa dayaxu inta uu jiro hadduu ka dhow yahay badda caarigeeda mawjadaheedu labada goorba wuu ina qarqin lahaa marna xagga kale uga bixi lahayd marna waa ka guuri lahayd hadday ka durugsan tahayna waa kadalik dhulka wareegiisu bay leeyihiin intuu yahay hadduu ka dheerayn lahaa iyo hadduu ka gaabin lahaa labadaba nololi ma jirteen hadduu ka gaabin lahaa macnaheedu waxa weeyaan habeenkaa dheeraan lahaa iyo maalintaa dheeraan lahaa sida planetiska kale marna waynu guban lahayn cadceedda tirada badan leyna haysa marna qabow baynu u dhiman lahayn qabowga tirada badan leyna haya dhulku dayax maadaama uu magnetic fieldkiisu hayo tilted weeyaan 23 degree 27 wuu yara qalloocabay leeyihiin dhulku qalloocaasi haddaanu jiri lahayna uu toosnaan lahaa bay leeyihiin dhulku sidaa u taagnaan lahaa imka waa yara sidaa hadduu sidaa u taagnaan lahaa bay leeyihiin roobka da'a north pole iyo south pole labada qutbo qura roobku heli lahaa dhulka intiisa kalena saxaaray ahaan lahay مثلا waxay tilmaamayaan haddaanu tiltidkaasi sidaa ahayn ama roobka ama dabaylaha ama biyaha badda haddaad tidhaahdo hadday intan ka yara dhanaan lahaayeen nololi kama jirteen hadday intan ka macaanaan lahayd nololi ma jirteen gravity-ga dhulku hadduu intan ka yara weynaan lahaa waxay leeyihiin maroodiga xayawaanka leegi xasharaadku leekaan lahaa ma la koreen innaguna dee hadduu maroodi xasharad leekaanaya quraanyadaynu ka sii yaraan lahayn dee quraanyan yaroo dhulka kor socda ayaynu ahaan lahayn the four forces mid kastoo wax iska beddelaan nololi ma jirayso buuruhu siday yihiin haddii wax laga waxay leeyihiin war wax kastoo dunidan dul saaran saynisyahanadu waxay leeyihiin wax kasta oo dunidan korkeeda saaran oo maanta aynu hayno haddii wax yar laga beddelo nololi ma jirayso idan bay leeyihiin kullu dalik waxay sheegaysaa inuu yahay tartiibun mutacamad bay leeyihiin war waa tartiib lagu talagalay oo noloshu waa nolol laynoo sii diyaariyey waa kownun ucidda lanaa bay tilmaamayaan qadaayaadka ay sheegayaan haddaan sii tilmaamo waa waxayn runtii wakhtigu ku fillayn
waxaan waqtigu u fillayn oo dee waxa ay tilmaamayaan everything wax kasta oo dunidan korkiisa yaalla oo siduu yahay wuxuun laga beddelaa atmosphere ha noqdo cadceed ha noqdo distaniskay wax isu jiraan ha noqdo xataa atomka nuclearka wasnigiisa ha noqdo proteinka wasnigiisa ha noqdo spaceska u dhaxeeya ha noqdo forceska isku haya ha noqdo wax kasta oo nolosha ka mida oo wax laga beddelaa waxay keensanaysaa bay leeyihiin inaan nololi jiri karin taa macnaheedu waxay tilmaamaysaa waa sida uu u dhigay Antoni Fuluye waa kownun ucidda lana buu leeyahy waa waxaynu joognaa duni laynoo sii diyaariyey duni qaabka loogu noolaanayo iyo qaabka tahay dhammaanteedba ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo sii diyaariyey waxay leeyihiin waa duni fine tuned ah oo markaaynu fine tuned tilmaamayno macnaheedu waxa weeyaan wax kasta oo yaallaa meesha uu saaran yahay haddii in yar laga qaado haddii laga qaado inaanay noloshu jiraynin ولذلك بو أحدهم وحلا يبدو أن الكون كان يعلم أننا قادمون بيري وحي أمو قتابو لا يدرده إن ينسيئو قيد إن ينو إيمان إنه